kusoo dhawaada warka maalinlaha ah ee aad kala socotaan YouTube-ka janaalka Saxafi Cabdullaahi Bakayle. Qodobada warka aad maanta aad ku maqli doontaan warka waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo goor dhaweyd la hadlay ayaa sheegay inay soo afjareen wajiga koowaad ee howlgalka ay ku qaadeen ciidanka maamulka Tigreega kadib markii diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay xalay garaaceen sawaariikh gacanta ugu jiray maamulka Tigreega oo yaalay nawaaxiga magaalada Mekelle ee caasimadda gobolkaasi. Abiy ayaa sheegay in gantaalaha la burburiyay ay ahaayeen kuwo awood u leh inay wax ka dilaan 300 kiiloomitir balse hadda la soo afjaray oo dhammaan la burburiyay. Wuxuuna tilmaamay in Tigreegu ay qorsheysneed inay isticmaalaan hubkaas la burburiyay lama oga talaabada xigta ay qaadi doonaan dalka Itoobiya.